Wuxuu soo noqday goor dambe maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He came back late. He came back late. Waxay qoraysaa warqad maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He is writing a letter. He is writing a letter. Wuxuu leeyahay saaxiibo badan maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He has many friends. He has many friends. Waxay ku nool yihiin tuulo yar maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? They live in a small village. They live in a small village. Waxaan cirka ku arkay qaanso roobaad maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? I saw a rainbow in the sky. I saw a rainbow in the sky. Wuxuu nadiifiyey kabahiisa maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He cleaned his shoes. He cleaned his shoes. Baska si lama filaan ah ayuu u istaagay maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? The bus stopped suddenly. The bus stopped suddenly. Waxaan baranaynaa taariikhda maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? We are studying history. We are studying history. Wuxuu xiran yahay jaakad buluug ah maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He is wearing a blue jacket. He is wearing a blue jacket. Badanaa waxay booqataa eedadeed maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? She often visits her aunt. She often visits her aunt. Hadda waxaan cunaynaa qado maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? We are eating lunch now. We are eating lunch now. Waxay dhaqanaysaa dharkeeda maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? She is washing her clothes. She is washing her clothes. Gaarigu aad buu qaali u yahay maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? The car is very expensive. The car is very expensive. Subax kasta wuu ordaa maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He runs every morning. He runs every morning. Si tartiib ah ayay albaabka u furtay maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? She opened the door slowly. She opened the door slowly. Waxay hagaajinayaan saqafka maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? They are fixing the roof. They are fixing the roof. Waxay waraabinaysaa dhirta maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? She is watering the plants. She is watering the plants. Waxaan ku sugaynaa saldhigga maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? We are waiting at the station. We are waiting at the station. Wuxuu qabtay kalluun weyn maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? He caught a big fish. He caught a big fish. Waxay u ciyaarayaan so farxad leh maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? They are dancing happily. They are dancing happily. Way wada heesayaan maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa? They are singing together. They are singing together. Halka aad nagala socoto waa xarunta waxbarashada ee Irmaan mahadsanid.